warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wada tashiga doorashooyinka iyo dhamaystirka heshiiskii Samareeb 3 Muqdisho September 17 2020 warmurtiyeed shir ay isugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah oo uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ka soo qayb galeen kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish shirkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 13kii iyo 17kii bishan aan ku jirno ee September 2020 shirka waxa uu daba socday kulamo isdaba joog ahaa oo ka soo bilowmay Samareeb 1 oo ay isugu yimaadeen madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo Puntland Jubbaland Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ka dhacay Samareeb 2 oo uu ka dhashay aan idhaahdee shirkii Samareeb 2 oo ay wada tashi ku yeesheen madaxda dawladda federaalka ah iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir oo la xiriiray sidii dalka doorasho waqtigeeda ku qabsoonta oo ay uga dhici lahayd waxa xusid mudan in shirka Muqdisho uu dhamaystir u yahay heshiiskii Samareeb 3 shir madaxeedkan inta uu socday waxa la isla gorfeeyay xaaladda siyaasadeed amni iyo bulsho ee ku hareeraysan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka federaaliga ah iyo tan madaxweynaha taas oo ku dhacda waqtigeeda si waafaqsan heshiiskii Samareeb haddaba iyadoo taas laga ambaqaadayo waxay madaxdu ku dul shaqeeyeen heshiiskii ka soo baxay Samareeb 3 falanqayn dheer kadib iyaga oo dhowraya midnimada dalka iyo wadajirkiisa tixgelinayana xaaladaha amniga iyo siyaasadeed ee dalka ka jira loona qaban lahaa doorasho xilligeeda ku dhacda waxay isla qaateen qodobadan soo socda qodobka koowaad in dawladda federaalka ah ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dawlad goboleed ah in deegaanada doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah ee dawladda federaalka ah lagu asteeyo 2 magaalo oo caasimadaha gobolada uu ku dhisan yahay dawlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codeynaya ay noqdaan 101 ergo oo metelaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dawlad goboleedka in qoondada haweenka ee 30% ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dawlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo 1 November 2020 in sugidda amniga doorashooyinka ay
ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan. madaxdu waxay adkeynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka ku-meelgaadhka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka. sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tabiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashooyinka. shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda Galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee Samareeb 1, Samareeb 2 iyo Samareeb 3. sidoo kalena waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka Banaadir sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuudii ballaadhnayd ee la socotay. waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii wadahadalladu socdeen, isagoo xoogga saaray in wadajir iyo wada ogol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka. ugu dambeyntii, shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayso dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya. dhammaad intaas ayuu ku dhammaaday sida uu qorayo heshiiskanina waxaa la horgeyn doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo baarlamaanka federaalka ah si uu u meel mariyo.